بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu eegaynaa maanta mawduuceeni afraad. hore waxaynu soo sameynay different section property materialkan waynu soo sameynay, dabeetna waxaynu haddana section property waxaynu qeexnay framekeeni oo ahaa beamka iyo columnka. waynu kasoo gudubnay waxaynu sameynay slabkeeni. iminka waxaynu sawiraynaa columnskeeni iyo beamskeena iyo slabkeena. markaaynu halkaa joogno, markaan overrace waxaan sawiranaynaa columnskeena, kaasaynu ku dhufanaynaa. markaanu kaa ku dhufano, halkan waxaanu ka dooranaynaa cabirka columnkeena oo propertieska. dacalkaasaad furaysa markaad column sawiraysa, waa kan column 2, waa kan column 3, waa kan mar walba kaad sawiraysid baad ku dooranaysaa. dad grade beam sawiraysid, dad watertank beam sawiraysid. markaan halkan waxaan sawiraynaa column 1keena marka horeysa. markaan halkaa ku dooranaa normal column 1 nootay propertieskeenu. hadduu columnkeenu angle noo lahaa waan ka dooranaynaa, haddaan columnkeenu angle noo lahayn zero angle ahaan u deysanaynaa. waxaan ku dhufanaynaa intii meelada column noo ahaa tutaasanu dul istaagana ku dhufanaynaa iyadoo halkan ay all history noo tahay. kaasna waan iska hubinaynaa all history waan ka dhiganaynaa. all history markay noo tahay baynu afarteenu column sawiranaynaa, columnkeeni iyo column 2geeni. tutaa u dul istaagnaan kaliya uma siino, ayaynu saddexdeenu column ka sawiranaynaa. iminka afartii xabbee column 1 waynu sawiranay, column 2 waynu haddana ka dooranaynaa. waa kan waxaan kula samayn karnaa intinalkaas oo kale. si aan istaagno meel bannaan ayaan tutaa usoo jiidi karnaa. inta column ayaan doonayna markaan dul istaagno ayaynu sii dayn karnaa mouskeena. column 2gana sidaas inoogu dhan yahay isaguna. 8 xabo waynu sawiranay. column 3 waynu ku xijiranahay sawiranaynaa, waa kan isna. sidoo kale tutaas inoogu istaagna wada highlight galaysanayna, sii daynayna, cancel baynu odhanaynaa. skip baynu ka taabanaynaa keyboardka computerkeena. waa columnska sidaas inoogu sawiran yihiin. stepka ku xigaan sawirayna waxa weeye waa beamkii. beamka markaaynu sawirayno waxaanu ka dhiganaynaa one history. waxaynu tagaynaa waxaynu tagaynaa ground floorkeena. ground floorkeena inagoo soo joogna kan soo dooranaynaa. kaa markaaynu ku dhufano ayaynu halkan ka dooranaynaa beamka aynu doonayna inaynu sawirano. waxaynu doonaynaa inaynu sawirano grade beam maadaama aynu joogno ground floorkii. markaa dabadeenta tabtaa u istaagno aynu ka wada baxna aynu tabtaa usoo jiidaynaa. markaynu tabtaa usoo jiidnaa waynu wada highlight galayno, sii daynaynaa. ground beamkani saas inoogu sawiran yahay, halkana waad ka arki kartaa. intaa ka gudubno saraad soo baxaysaa. isla markaanu soo baxnayno halkan waxaan sawiranaynaa floor beamkeena. one history waynu deysanaynaa, waan ku dhufanaynaa. sidoo kale tabtaa intaynu dul istaagno halkan waynu bedelanaynaa propertieska. waxaanu ka dhiganaynaa propertieska bedelana waxaan ka dhiganaynaa beamkeena caadiga ah. tabtaa intaad dul istaagtid tabtaa waad select garayn kartaa, iyaduna waa way kale ood sawiran kartid adoo aan jiidinba. ku dhamaynaysa adoo hubinaya inaad dul taagan tahay lineka. markaad ugu dhamaysid skip baad taabanaysaa keyboardka. markaas skip taagtid inoo sawirantay iyaduna. waxaan rabnaa inaynu copy garaysano aynu dhammaan tabaqyadaynu ku istigrayno. markaynu copy garayno haddaba sidaynu copy garaynaa waa imanaysaa. select baynu tagaynaa, select baynu haddana kasii dooranaynaa. property baynu ka dooranaynaa. waxaan ka dooranaynaa frame section. waxaynu ka dooranaynaa beamkeena aynu taaganahay, dabeetana selecting bay odhanaysaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad dabaq walba intaad dul istaagtid tabtaa inu soo sawiranayo kale aad ugu wada sawiratid. labada qaab baadaa xiro kii kuu fudud. markaad soo highlight garaysatid, aad ka soo highlight garaysatid select haddana properties frame section. aad beamkaaga adoo taagan select garaysid, aad close tirahdid, waxaad tagaysaa edit. markaad tagtid waxaad ka istagaysaa replicate ama keyboardkaaga aad ka taabanaysaa control plus R.
markaad replicate tagtid waxaad tagaysaa xabadda hawshaysa ay ku qoran tahay history. markaad tagtid history 1 inuu ku sawiranay waxaan ka bilaabaynaa history 2 taas inuu jiidanay inuu ku hayno mouskeena dacalka bidix ama waxaad doonaysaa computerka control deetna xabad walba u istaagaysaa click baad siinaysaa. waxaan rabnaa in beamkeena ugu sawirano history 1 ilaa iyo isqoofka history 1 horena ugu soo sawiranay markaan rabnaa inaan ku replicate ku copy garayno kadib wada heli galistida balay wada oranaysaa okay waad sii oranaysaa inuu ugu sawiray beamkeena xaggan sareen u baxaynaa markaan baxno proofka intaan qofkan ugu sawiray waana wada sax sareen uga sii baxaynaa water tank-ga intaan water tank-ga hadaba waxayna kaga dhacay columns qaadaan u baahnay water tank-ga halkan baan saaranaynaa marka uma baahan columns kan kale u dheeraad oo iska saarana gabi ahaantood marka laga reebo afarta column labada column 2 iyo labada column 3 marka sidee baan isaga dhiganaynaa timid tabtaas inta meel cidla u isticmaalay tabtaas oo jiidaynaa iyagana waa la gaasmay ama uu dul istaagayna column kasta iyadoo halkan wall history inoo tahay waxaad iska ilaalinaysaa mar walba inay halkan wall history ka ahaato haddii wall history ka noqoto dhammaan columnska kale oo dhan bay saameynaysaa tabtaas inuu kala garanaynaa intaan xabad kasta u dul istaagno ama tabtaas inuu jiidaynaa iyadana waa la gaasmaysaa keyboardkaaga ayaad ka taabanaysaa numberka ay ku taalo delete iyagaa baxaya oo check garaynaysaa haddaanay bixin sida kuwan oo kale aan naga bixin delete baad haddana keyboardkaaga taabanaysaa marka iyagaa si toosa kaaga wada baxaya. intaan ku gudubno waxaan tagaynaa basekeena intaan waxaan eegaynaa inay wax beams aan isku sawirnay inagama sawirna soo soconaynaa ground floor-kana waa caadi grade beam-keeda noogu sawirayo columns-keena caadiga ahaa salaad soo baxaysaa color-kan oo kale aad kala ground beam-ka column 3-geena color-kiisa iyo grade beam-ka color-kiisa isku mid dib baad u noqonaysaa caadad sida soo bedelaysaa adoo ku noqonaya define section properties frame section ayaad ka bedelanaysaa grade beam-ka color-kiisa dhib ma laha baad ku dhufanaysaa color-ka aad doonaysaa tusaale ahaan color-kan kale bay nooguma jiro halkan baad saa u dul istaagaysaa okay baad oranaysaa okay baad oranaysaa okay baad oranaysaa hadduu kuu soo bixi waayo san color-kaaga horaa kaaga sii muuqanaya waxaad samayn kartaa waxaad tegaysaa halkan baad imanaysaa abalayun baad oranaysaa sidoo kale daaqadaadan 3D inta saa u dul istaagtid baad abalay oranaysaa color-keena isaga isbedelaya si automatic ah markaad tabtaa u bedelatid aynu intaa ku gudubno waxaynu sameynaynaa waa slabkeena stairkan halkaas inoo dhacaya markaa stair slabkan in marka horeysa sameysanaynaa iyadoo one history inoo tahay stairka markaad sawranaysid slabka waxaad ka sawran kartaa 3 qaab oo kala duwan. qaabka koowaad waxa weeye adigoo ka isticmaalaya qaabka labaadna adigoo rectangular-kan isticmaalaya qaabka saddexaadna adigoo isticmaalaya qaabka u fudud loo sameystay slabkaagu markaan ahayn irregular shape-na waa kan weeye kan baad ku dhufanaysaa properties-kaaga bedelanaysaa waxaad ka dhiganaysaa stair slab baad ka dhiganaysaa oo dul istaagaysaa inuu click baad oranaysaa. qaabka kale aad sawran kartaa waxa weeye adigoo kan doorta marka aad dooratid waxaad ku dhufanaysaa waan sawranay stair slabkeeni roof slabkeena sawranayna roofkeena slabkiisa iyo sidoo kale slabkeena caadiga dabaqyada caadiga ah rectangle markaad timaadid kaasoo kale saa usoo dul istaagaysaa oo jiidaysaa koonahaaga markaad tagtid koonaha kale waad imanaysaa oo sii daynaysaa kaasuna waa nooc kale aad sawran kartid. nooca saddexaad loo sawran karaana waxa weeye kan u sarreeya keenna si taagnaanaynaa kaasina ka bilaabaynaa markaan kaa ka bilowno kan baynu ku dhufanaynaa kaynu ka bilowna weynaatana ku xidhaynaa tabtaa ku xidhay isagaa kaa sawray. saddexdaa qaabyo kala duwan baad sawran kartaa slabkaaga. qaabka u fududaan waan isticmaala waa kan kaa saddexaad weeye kuuga darooga dul istaagaysaa inaad la dhacaysaa tabtaa u dhamaysid tabtaa hadda kale inuu koobigareysanaynaa controller baan taabanayaa cafwan intaan controller taaban soo select gareysanaya slabkayga select waan odhanayaa properties baan imanayaa waxaan ku dhufanayaa slab section markaan ku dhufto waxaan doonayaa inaan select gareysto labadeeda
slabkayga roofka iyo stair slabkayga select baan odhanayaa, close baan odhanayaa, control R baan taabanayaa, history baan ka tegayaa, history one-kaygan ku sawirtay waan jiidayaa ilaa ayaa roofkayga ka gaadho, apply baan odhanayaa, close baan odhanayaa. Marka inta aynu ka gudubno waxaanu sawiranaynaa inuu wixda waxa weeye water tanki slabkeena, water tankiga tagaynaa inuu ka jeegranaa dhammaan slabskana kale inuu saxiixin. water tankiga markaanu imanno waatan water tanki baan joognaa, waxaynu tagaynaa slabkiisa baan ku sawiranaynaa, inagoo kan ku dhufanaynaa, halkan baynu imanaynaa, waxaynu ka dooranaynaa water tanki slab, dul istaagana click baynu odhanaynaa. markaasaynu ku joojinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.